wiilkani waxa uu saaran yahay maxkamadda jinka ama waa lagu xukumayaa maxkamadda jinka. sababta ay u maxkamadeynayaan sabab kale maaha, waxa uu geystay dembigaasi oo uu iyaga ka galay jinka, qoladaasi jinka. Hey yo, welcome back. It's me, Amir CK. You know me? Yes or no? Commentiga nagu soo qor. Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Haddaba qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay wiilkan yar. wiilkan oo ku noolaa amba qisadu meesha ka dhacday oo ahayd wadankaasi Yemen. qisadan haddaba waxay ka dhacday deegaan ka tirsan wadankaasi Yemen oo lagu magacaabo Shahwa. haddaba qisada wiilka ay ku dhacday waxaa lagu magacaabi jiray Axmed. wiilkan Axmed haddaba waxa uu ku jiray da'aadiyada 20 jirka. Axmed waxa uu ahaa wiil askariya oo wadankaasi Yemen ka shaqo gala. haddaba ninkan Axmed wuxuu ahaa wiil ciidana sidaan soo sheegay. wiilkani haddaba waxa uu shaqada ka soo rawixi jiray habeenkii saqda dhexe. yacni wuxuu ka soo iman jiray shaqada 12 kowda meelahaas xilligaas ka iman jiray. mararka qaarna waxaa laga yaabaa intuu shaqadaas xilligaasi ka soo baxo inuu soo maro asxaabtiisa oo uu la soo qaylo. ogow Yemeniintu waa dadka ugu qaylitaanka badan amba ugu cunista badan qaadka. haddaba anyway, si kastoo ay ahaataba ninkii Axmed habeenada ka mid ah waxa uu ka soo baxay shaqadii abbaara 11 habeenimo, isagoo oo wadada soo socda oo dee iska xaragoonayo. oo midda kale waa nin askariga la soco. isagoo oo wadadii iska socda ayaa waxaa ka soo horbaxay shakhsigaasi oo wadada meesha uu marayay Axmed sidaas u taagan. Axmed wuxuu islahaa qofkan uu ku dhaafayaa amba dee dhinac buu maraya uu ku dhaafayaa. qofkii baaba dhaqaaq waayay ilaa uu u soo dhawaaday Axmed uu ku yiraahday yaa tahay waryaa iscadee. markaas markii dambe uu dhaqaaq waayay buu ninkii Axmed waxba la soo eriyay isagoo la soo eriyay. joog waryaa joog. ninkan Axmed waa nin askariya, waxa uu sitaa qorigiisii. in cabbaara markuu ku yiraahday joog ee uu qofkani ka joog waayay, aakhirkii waxa uu xal u arkay inuu ku rido xabad. taasi oo markii uu xabadda sidaas Axmed uga jaray uu qofkaasi dhulka saasi ugu dhacay dem. markii uu arkay Axmed inuu qofkaasi uu dhulka ku dhacay, markiiba meesha uu ka baxsaday. haddaba ninkii Axmedi sidii u sii socday markii uu qofkaasi xabadda saasi uga jaray, sidii u sii socday gurigoodii muunam ilaadu galay. ninkan iskama waalan baa uu iska casheeyay uu iska seexday. in cabbaar markuu iska hurday ayuu hal mar ninkii Axmed waxa uu bilaabay qaylo. qayladii markuu joojin waayay ayaa waxa u soo baxay dadkii la joogay gurigaasi familkiisii. markii ay u soo baxeen familkiisii ayaa waxay ku yiraahdeen hooy Axmed aamo. ninkan maba aamusayaba. waxay isiraahdeen bal kiciye bay isiraahdeen, wax kasta ka jareen uu kici waayay. markuu aamusi waayay ayay bal waxay isiraahdeen bal wuxuu ku hadlaayo dhageysta. ninkan Axmed waxaaba ka dhex hadlaayaba qolooyin kale oo islaamo odayo caruur yaryarna uu waxba ka dhex qaylinaya. waalidkii marka ay dhageysteen inaan kan yar waxa uu ku hadlaayo, waxaaba u soo baxdayba in ninkii Axmed dhexdiisa la isku dhexaysto. dadkan ka dhex qaylinaya kolba qof baa hadlaaya, mar oday baa ka dhex hadlaaya, mar islaam baa ka hadlaysa saan soo sheegay. iyo islaantaasi oo leh wiilkayga maxaad u dishay, wiilkayga muxuu kugu sameeyey. adigu waxyaaba noocaasiya ayuu ninkii Axmed dhureeyay. adigu faamilkii sidaasi kumaysii eegin oo waxay u yeedheen nin wadaada oo arrimahan jinka iyo waxaasi ku shuqul lahaa. ninkii sheekha markii uu saas u yimaaday uu xaaladda arkay ayaa ninkii sheekh ahaa iyo qoladii jinka hayday ka dhex hadlaysay Axmed ayaaba sheeka dhex martayba. markii uu sheekhii la falgalay qolooyinkan Axmed ka dhex qaylinaya ayaa su'aal buu weydiiyey. su-aashaasoo ahayd
maxaad ku haysataan wiilkan yar deeta qoladii ku dhex jirtay Axmed baa waxay idhaahdeen wiilkani wuxuu naga dilay inan buu naga dilay bay idhaahdeen inan buu naga dilay sidaas darteed baan u galnay jirkiisa deeto waxay idhaahdeen ku dareen anagu ma sii daynayno naftaan ku cadaabayna adoo hadalla noocaasi ayaabay jirkiisii ka dhex idhaahdeen Axmed deeto Axmedoo sidaasi looga dhex qaylinaya kolba xaggan ka soo boodaya wuxuu leeyahay isagoo hurdayaa ma soo boodaya isagoo hurda haddana wuxuu leeyahay anigu ku talagalay maan dilin isagaa iga soo horbaxay iga baydh baan ku yidhi nacni isagaa isoo weeraray Axmedna halkanuu iska difaacaya deeto kol iyagoo sidaasi u murmaya ayay kolba islaantii dhashay wiilka jinkee la dilay ayaa tidhaahday inankaygi way ka dilay ma sii daynay haddana odaygiiba hagan ka soo boodayo leh kula fuduuda haddii wiilkaaga la dil lahaa saasmadu sii dayneed adigu xaalada noocaasi xataa waxaa la duubay codkii uu ku wareysanay codka markii sheekhu uu la hadlayay qoladan jinka codkaasi baa la duubayo xitaa baraha bulshada aad buu haysataa waxa kaloo yidhaahdeen anagu waxaan nahay qolo jin ah oo muslin ah oo nacni dee annaga xeer baan dhexdeeda noo yaala adigu hadalla noocaasi ayaabay yidhaahdeen qoladii jinka ahayd deeto hadalkii waxa ay ku soo gabagabeeyeen qoladii jinka ahayd annaga wiilkan maxkamad baanu saaraynaa maxkamad baan leenahay wixii ay ku xukunto ayaa lagu xukumayaa ninkan deeto ninkii sheekh ahaa wuxuu arkay in xaalku uu cakran yahay deeto wuxuu idhaahday waayahee dee la socda oo wiilkan dad buu ka dhashay markaa bal sidaasi ula socda ninkii sheekha waa isdhiibay isagu markuu kari waayey dede waxaan ku faraha ka baxday xaaladdu deeta ninkii sheekh ahaa waxa uu toos ugu tegay waalidkii dhalay Axmed deeta Axmed wuxuu ku idhaahday wiilkiinii waxa uu dilay qolo jin ah yani saas darteed uga dhex qaylinayaan markaa waa in waxay idhaahdeen maxkamad baan saaraynaa markaa wanyaga inaka warsugnaabay idhaahdeen haddii aan gulaha ka waran wiilkaasi Axmed maxkamadayntu waxay ku socotay muddo 4 maalmood afartaa maalmood cunto waa loo diiday cunto muu cunaynin biyo muu cabaynin hurdo muu seexanaynin salaad muu tukanaynin afartaa cishaba maxkamadayn waxaa ku socotay maxkamadayntii jinka acuudu billaahi min ashaydaani rajiim haddaba markii ay maxkamadayntaasi ay socotay waxaa laga dareemayay ninkii Axmed ahaa isku buuq nacni maxkamadda inuu buuq waaliyo ka dhex socdo wiilkan waxaa u doodaya oo garab taagan waa ninkii sheekh ahaaba garab taagan oo halkani uga doodaya deeto adigu sidii loo doodayay ayaa aakhirkii waxa soo baxday maxkamaddii jinka waxaa ka soo baxday in ay tanaasuleen qoladii jinka ahayd ee wiilka laga dilay waxaana shuruudo ku xidheen inankani inaanu mar dambe cid dambe inaanu gacan u qaadin inaanu qof dambe aanu dilin saasay go'aan ku gaadheen adigu aakhirkii sheekadaasi halkaybay kusoo gabagabooday wiilkiina sidiibaa faraha looga qaaday deeta dadkii waxay u kala baxeen 2 qof labadaasi qof oo kala ahaa dad leh nacni dadkan wiilka dhalay waxay iska dhigayaan qolooyin aan jinkiya waxaasi ka cabsan aan dee wax adigu dee waxaan halaagiina iska dhigayaan waxay doonayeen inay kusoo caanbaxaan dadna waxaan run bay u qaateen oo waxaan ku yidhi dee waxay yidhaahdeen waxan waa wax jira sheekadiina halkaasi ku dhammaatay aad iyo aad baad mahadsantii daawashada fiican ilaa halkaasi nala soo socotay waxaan ka codsanay janalka subscribe noo saartid aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay